Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan asxaabtayda. Haddii ay tahay markii kugu horreysay eed soo booqatay channelkayga, subscribe sii kuna soo biir walaalaheen quruxda badan. Haddii aad hore u subscribe-san waad ku mahadsantahay. Haddii aan kusii socdo maanta barnaamijkayga maanta waxaan kaga hadli doonaa Itoobiya, khaasatan waxaan kaga hadli doonaa muslimiinta Itoobiya. Muslimiinta Itoobiya saad ogtihiin tacaddi badan ayaa la soo kulmay, laakiin alxamdulillaah u dambeyntii maanta dowladdan hadda jirta ee uu hogaamiyo ama garwadeenka ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxyaalo badan u ogolaatay oo furfurnaansho ah. Waxaana ilaahay ka rajaynayaa inay usii socoto furfurnaanshahaasi iyo xuquuqaha ka maqanna ay helaan. Saad la socotaanba sanadkan aynu ku jirra dhexdiisa baarlamaanka Itoobiya ayaa aqoonsaday golaha sare ee arrimaha islaamka ama majlisul aclaha islaamka, iyadoo ay u shaqayn jirtay hay-addani markii hore hay-ad samafal ah sideedoo kale, laakiin baarlamaanku wuxuu aqoonsaday inay tahay hay-ad diini ah. Waxayna sidoo kale u aqoonsadeen laba diimood oo keliya, diinta islaamka iyo diinta masiixiga ama kiristaanka inay Itoobiya ka jirto. Markii horena waxay Itoobiya aqoonsanayd oo keliya diinta kiristaanka keliya. Alxamdulillaah, ilaahay baa mahad leh. Intaa kadib markay baarlamaanku saa u aqoonsadeen ayaa waxaa dhacay haddana inay muslimiintu aad uga farceliyeen arrintaas. Muslimiinta Itoobiya iyo golaha sare ee arrimaha islaamku inay aad u soo dhaweeyeen. Golaha arrimaha islaamka ayaa loo ogolaaday inuu waxyaalo badan qabsan karo, inuu golaha la midka ah ee dhigiisa ee carabaha iyo adduumada kale xidhiidh la samayn karo, ay booqasho isweydaarsan karaan, khibrad isweydaarsan karaan. Markaas waa wax aad loo soo dhaweeyo, waana furfurnaansho aad iyo aad u wanaagsan. Waxaana garwadeen ka ah oo isbeddelkaa sameeyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sameeyey. Sidoo kale waxaad ogtihiin intaas isbeddelku markuu dhacay ayaa waxaa haddana dhacday maayarka magaalada Addis Ababa ninka lagu magacaabo Takala Umma ayaa dhulkii ugu weynaa guddoonsiiyey golaha sare ee arrimaha islaamka. Sidaad u jeedaanba shahaadada uu guddoonsiinayo sheekha waa shahaadadii dhulka lagu guddoonsiinayay. Dhulkaas waa dhul aad u weyn oo magaalada Addis Ababa dhexdeeda ku yaalla, waxaana dhul aad qaali u ah. Sidoo kale maayarku ku mahadsan yahay. Sidaad u aragtaan dhulkani waa dhul aad u weyn, wuxuuna ku yaallaa kasoo horjeedka guriga caanka ee weyn ee African Union ay ku leedahay magaalada Addis Ababa. Waana dhul ka kooban kiiloomitir ahaan haddii la yiraahdo 30,000 oo mitir oo isku weer ah. Waana dhul haddii baayac mushtar ama ganacsi lagu bilaabo ama shirkado laga iibin lahaa malaayiin dollar ku kici lahaa. Waana aad bayna u wanaagsan tahay dowladdu inay ku caawiso. Waxaana laga dhisi doonaa dhulka masaajida aad u waaweyn iyo meelo diinta lagu barto. Sidoo kale waxaanu xog ku helay in dhulkaas iyo lacagta ku baxaysa oo bixinaya waddanka Imaaraadka Carabta una tuurta u ritay ninka lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan ama MBZ loo yaqaano. Ninkaas ayaa ku baaqay inuu bixinayo lacagta ku baxaysa. Waana dhul aad qaali ah, waxaana laga dhisi doonaa masaajidada qaaradda Afrika ugu weyn iyo macad lagu barto diinta islaamka iyo qur'aanka iyo wax aad u wanaagsan oo la soo dhaweeyo weeyaan. Maasha Allah. Sidoo kale muftiga Itoobiya ninka sheekha lagu magacaabo Alxaaji Cumar ayaa isaguna aad iyo aad u soo dhaweeyay arrimahaas isbeddelka ah ee horey loo qaaday oo muslimiinta u ogolaanayo xuquuq badan oo ka maqnayd markii hore. Sheekh Cumar oo muftiga Itoobiya ah ayaa isaguna si fiican uga qayb qaadan doona. Muslimiinta Itoobiya sidoo kale waxaa loo ogolaaday inay iskood isu maamulaan oo hay'ad ka madax bannaan dowladda ay noqdaan, oo waxay rabaan oo arrimahooda islaamka ay ka samaystaan. Sidaad ogtihiin kolkii hore ma jirin arrintaas, laakiin hadda waa wax u soo kordhay arrimaha islaamka, arrimaha Itoobiya ee gudaha Itoobiya dhexdeeda. Sidoo kale waxaa loo ogolaaday muslimiinta Itoobiya inay samaystaan bangiyo islaamig ah oo ku shaqeeya shareecadeena qaaliga ee islaamka ku shaqeeya, oo ka shaqayn doona Itoobiya oo dhan. Iyadoo markii hore ay ka cabsan jirtay Itoobiya haddii loo ogolaado muslimiinta bangiyo islaamiga inaynan bangiyadan ribada ku shaqeeya inaan helaynin dad lacag dhigta. Waana arrin aad u wanaagsan. Halkaas ayaan ku soo gabagabanayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.